aniga waxaan qabaa inaysan haween mid uur leh mid masaakiina mid odaya mid culimaa mid dembi galay midaan dembi gelin aysan raadinayn ay raadinayaan qof baan dilnay waa ganacsi wax ah oo qof baan dilnay marka dadka hadday dilayaan dadka dawladda iyo ciidamada iyo u shaqaynaya ha dileen ee la dagaalamaya ee xaasaska iyo carruurta inay ku soo noqdaan ujeeddadoodu ma ahan inay dagaal iyo ummad Soomaaliyeed rabaane ujeeddadoodu waxa weeye qandaraaskii ay wateen intaasaan maanta soo dilnay weeye ma ahan dad shacab Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed oo xaas iyo habar iyo oday iyo wiil u kala naxaya ma ahan waa qandaraas ay wataan waxay dilaan baa loo qorayaa oo ay raadinayaan ma ahan kuwa dan kale ama ujeeddo kale leh waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dawladda ciidamada kulli gacanta hay qabsadeen hana kaga soo horjeesteen kooxaha jid iyo jahdiista oo ummadda Soomaaliyeed dhiiggeeda iyo maalkeeda xalaalsaday waa in meel looga soo jeesto qof kasta ama idaaca ha noqdo ama siyaasi ha noqdo ama cid kastaba ha noqotee waxa la isku haystaa buu yidhi waa labada nin oo hadalka isku haysta hooyada waa sida gacantaas dad badan oo siyaasiyiin oo hadlaaya ama dad war waxaan isku haysanaaba ma jiraane waa inaanu haysiganagu uruqdo cadowgaas inaan dalka marka hore ka saarno caqli kalo cadowga waa ka maalroonnahay waa ka ciidan badannahay waa ka shacab badannahay marka inuu cadowgu uu maalin walbaba siduu rabo suubiyo waxa weeye waa ayaan darra annagan haysata cadowgu waa inuusan ayaan darra nagu helin aanu ogaano cadowgu nina inuusan dhaafayne aan ka hortagno godane hadduu dhintay waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed qodax ku taagan oo ilaahay ka bixiyey waxaanan qabaa godanayu waa badan yihiin godana waa dhintay yaan barkin loo dhigan godanayaashu waa badan yihiin wuxuu tababaray baa jooga wixii wax la qabsaday baa jooga marka waa in la sii kordhiyo oo la sii kordhiyo sidiya jaadiidku meeshu joogaba looga daba tago la sii kordhiye yaan la oran godana dhigtay barkin dhigtay yaan la oran taas ummadda Soomaaliyeed waa ummad hal diina leh waa ummad islaan ah waa ummad hal ujeedda leh ma ahan in caalamka iyo dalkaba argagixisa naloo aqoonsado waa shay fool xun waa in dhallinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalka soo socda dalkooda iyo dadkoodaba ay u istaagaan kana difaacaan kooxaha dhiigyacabka uubatada jid iyo jaadiidka waxaan soo masiiba ayaameshan yaali yaa maali jiraye ayaa joogta maante magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira waxaan soo masiiba ayaameshan yaali yaa maali jiraye ayaa joogta maante magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira waxaan soo masiiba ayaameshan yaali yaa maali jiraye ayaa joogta maante magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira waxaan soo masiiba ayaameshan yaali yaa maali jiraye ayaa joogta maante magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira magace intoo lumiso maad ismaqalo qaranimada ku mintira